haddii aynu qiso yar soo qaadano magaaladan aynu joognay Hargeysa ina yarba mobilka ku gaalowday radeegada mobilka oo magaaladan ay joogtaa ayay ku gaalowday diinta islaamka kaga baxday English tay taqaanay waalidkeedii waxay ku tiri waxaan u baahanahay jaamacadan dhigtaaye internet xoog badan inaad ii soo geliso hooyada abeeda ku tiri sidii casharadii macalinku noo soo dirayo si fiican aan uga shaqeyn karo baaritaan wanaagsan aan ku soo sameyn karo waayo dadkiina hunguri laga raaca oo qof waliba wiiliga gabadh wuxuu isleeyahay balkan ingiriisida aad hawl liqliqo si uu lacag beeran u soo daato quraanka aad hawl liqliqo oran maaya si uu alla kacabsi u soo daatee mid waliba wuxuu leeyahay bararta taa u badan cilmiga maadiga ah law adduunyo doonay kaashu leeyahay ka dharki intii internetkii uu ka dharkiyay waalidkii iyaduna waxay la xiriiray qolo Norway joogto mission waxa ay kuwa diinta Kristaanka faafiya waxay siiyeen dhoofkii laga raacay waxna way la soo yara qaadeen waxay dhahay si arrinkaaga meel loogu tiiriyo de waxaan u baahanahay inaad madaxdayada la xiriiro hay'adaas aanu nahay waxna waanu ku bari jaamacad waa ku dhoofineynaa ma iska aqbalaysaa markaa xiriirka iyaga intaa leeg say u sii wadeen waxay dhahaan waxaan kula xiriirin doonaa wadaadka iyaga waa wadaad Kristaan ah waa boobkii kaniisadda Scandinavia jooga boobkii baa lala xiriiriyay diinta islaamka oo ka saaray markii ay ogaadeen godkii ay la doonayeen inay ku dhacday ila godka weyn lagu ridaa waa gaalnimo ilaahay aan ka maagalnay waana godka weyn shaydaanka iyo saaxiibadiisa sharwadeen ay qofka la doonaan إلهي بأحرك كمثل الشيطان إذ قال للإنسان كفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين والشيطان كي يقف كي قال لما أصابن لغا مركو قالوا بين أيدي بريبا كاه أو نار تكوه بصري waxay dhawa ku dhoofinayna hadaba passport baan kaaga sameeyna safaaradda Ethiopia kale tiyarado sii socotaba ayuunba maalmihii ugu dambeeyay waalidkeed oo hooyadeeda ayuunba yara murmeeyay islaamkii umbay durtay iyo diintii islaamka iyo nabiga aad sheegaysaa meelo haynka dumarka dulmiye islaamka aad sheegaysaa meelo haynka waxa dumarka ku sameeyay wixii yara lagu shubay wixii xumaay lagu shubay qaar kood soo ka bacday sida bulaacada ayay soo neeftay wixii ila gaalnimadu waa qurun إنما المشركون النجس قرآن كاكو شاقين النجاس يقولون تاي يخبط بركي بلعادي صور نفتر إن أنت هذه هو يدد وحي عرقت إن أنا إن أنت يهين إربادي كل مدنتا هو إسلنتا هذه عرقت فبتنوى وحيوي عدابه إنما ذي بأولي عدي إن أنت لحضوري سيد بابا الله ورئيستي بركا وحالها علي حقتي بالله علي خاتكينا ولا راعي تدرقي بالله قاعد iyadoo sii guureysada oo gaalowday xagee laga helay dabadba uma baxday inantu waalidku wuxuu lahaa inantu wanaagsan oo shucuuro naga saaxiibadaba ma laha inanteeda halka casharada bay ku urursan tahay oo habeenkii oo dhan raajacda iskuul waa jaamacadda iyo guriga waxba uga dhaxeeya cid bay isbaraaca ma oga halka ay dadkay raacdo ee screen-ka yar ka soo baxay kama warayso sidii baa dabeedna inantii jaamacaddii lagaga saaray diintii islaamka lagu soo celiyay